waxaan kaloo rabnaa inaan u gudubno inaanu magaalada si siman cashuurta uga qaadno laakiin waxaanu suntanay bacda fadhiga hadda ah oo bisha koodada dhacaya inaanu cashuurtina walba qaadno iyadoo oo dhammaystiran awalan ka bilowno dhulkii in loo sameeyo tobline oo la xakameeyo injineerada nin walba guri iska seesaayo barantii hore wadada runtii waxaan aad u tusnay dadka bal inaan wado u sameeyno wadooyin kamid ah baan buuxinay wixii tabartayada ahaa laakiin hadda fursad noo harsan oo kaliya waxay tahay markaanu amnigii iyo nadaafadii iyo maamul daadejintii haday xaafada tahay iyo haday dowladda hoose tahay iyo haday tahay la shaqayntii amniga inta markaan soo maray hadda baraarujintii bulshada hadda waxaan sameynay inaan u diyaarino jaangooyo cashuurati ugu hooseysay ee beeska qofku aanu dhibsadeen hadda u diyaarinay inaanu bisha 6aad ku bilowno hadii alla yari anagoo runtii jecel ganacsatada iyo dadka maaragtay horumarka aad u daneynayaba inay la ogaadaan oo soo bandhigno waxaanu runtii raadinay inaanu kastamadii furo way hadda inaga gobolada sheegta hadda Soomaaliland laakiin anagu u naqaano gobolada waqooyi galbeed u naqaanay waxa ka imanayay baabuur soo socodka Soomaaliya ah oo ganacsi kala duwan la isku wadaarsanayo runtii waxa aad iyo aad u raadinay inaanu ka qaadno cashuurihii loogu talagalay laakiin maadaama dawladii mashquul gashay teleefooyinkii la mideeyay baan soo qaadanay waxoogay waxa laga kulmayba inaan waliba aan gobolka la soo gaarsiin teleefooyinka qaybta waa haynay laakiin la shaqayntii ayaa aad iyo aad u adkaatay laakiin hadda waxaan qaadnaa ayaamahan socodsiinay intii Puntland sida galdogob ama Faleriyaal intay qaadaan ayaan hadda bishan socodsiinay inaan ka qaadno airport-ka noo harsan